saaxiibayaal halkan waa dhanka wararka kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee siyaasadda Soomaaliya. Qodobada warkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya Rooble oo kulan la qaatay Saciid Cabdullaahi Dani iyo Xasan Sheekh Maxamuud maxay ka wada hadleen cabsi soo wajahday mucaaradka madaxweyne Farmaajo oo qarka u saaran inuu soo laabto ololaha nabad iyo nolol oo bilowday iyo wararkii ugu dambeeyay arrimaha doorashooyinka ee Soomaaliya ayaan ku eegaynaa warkeenan. balse marka hore saaxiibayaal u diyaar garooba qodobada hordhaca warka aad daawateen oo dhameystiran. hagaag aynu ku hormarnay Rooble ayaa kulan la qaatay Saciid Cabdullaahi Dani iyo Xasan Sheekh Maxamuud iyadoo waxay ka wada hadleen si weyn dadka Soomaaliyeed ay u fahamsan yihiin. Maxamed Xuseen Rooble ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta ayaa ka hor inta uusan maanta ka dhoofin garoonka Aadan Cadde waxa uu kulan la qaatay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Maxamed Xuseen Rooble ayaa labadan oday kala hadlay inay u midoobaan la dagaalanka Farmaajo iyo sidii meesha looga saari lahaa isla markaana ay istaagaan hulka doorashada markii la tago oo Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale Saciid Cabdullaahi Dani codadka ay siiyaan. arrintan ayaa waxa sidoo kale ka dhigan tahay in Rooble markan uu baadi goobayo inuu soo dhaweeyo Saciid Dani iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo markii hore saaxiib wadaag ahaa balse markii dambe danto ay kala geysay kadib markii dhabarka jabin weyn uu ku sameeyay madaxweynaha Puntland Saciid Dani Xasan Sheekh Maxamuud iyo mucaaradka kale ee Soomaaliya. sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa kulan la qaatay Rooble iyo Xasan Sheekh Maxamuud xilli uu olole ka wado gudaha magaalada caasimadda ah ee Muqdisho oo muddooyinkii ugu dambeeyay ku sugnaa. Dani ayaa la shareeray Ra'iisul Rooble iyo sidoo kale Xasan Sheekh Maxamuud wuxuuna kala hadlay arrimaha doorashooyinka ee Soomaaliya iyo xaaladda soo kordhay ee caqabadaha weli ka taagan dhamaystirka doorashada dalkan Soomaaliya. kulankan oo saacado badan qaata ayaa ahaa mid ay dibadjoog ka ahaayeen saxaafadda waxaana qoraal kooban oo ka soo baxay xafiiska Rooble iyo Puntland lagu shaaciyay in mas'uuliyiinta ay ku hadleen arrimaha doorashooyinka ee Soomaaliya. sidoo kale Saciid Cabdullaahi Dani ayaa bilaabay inuu la shiro xildhibaanada golaha shacabka si uu uga gato ama uu u gado damciisa siyaasadeed ee hoggaanka Villa Soomaaliya. xubnaha uu la shiray ayaa waxaa ka mid ahaa Mahad Salaad oo ka tirsan mucaaradka Soomaaliya isla markaana ka mid ah xisbiga UPD iyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Dani ayaa sidoo kale kulan gaar ah la qaatay dhawaan saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya kuwaas oo qaar ay hadda xildhibaano ka yihiin golaha shacabka ee cusub. Saciid Dani ayaa qoraal soo saaray waxa uu ku shaaciyay kulankan oo ahaa mid furan isla markaana uu isugu yeeray saraakiisha waaweyn ee ciidamada Soomaaliya. hadda mucaaradka Soomaaliya waxa ay bilaabeen dhawaan oo la doorasho oo xilka madaxweynenimo ee Soomaaliya ay ugu baadi goobayaan. hase yeeshee kulanka uu la qaatay Ra'iisul Rooble Xasan Sheekh Maxamuud iyo Saciid Cabdullaahi Dani ayaa waxay halkaas ku gaareen heshiis siyaasadeed oo ujeedkiisa ugu weyn uu yahay sidii Farmaajo iyo Salaabashiis looga hortagi lahaa isla mar ahaantaana gabi ahaan laga takhalusi lahaa damaca Villa Soomaaliya ee ugu jirtay mar kale uu ku soo laabtay kursigaasi Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. qorshahan ayaa u muuqday inuu hadda noqonayo mid dhicisoobaya marka loo eego Saciid Dani iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo aan taageero saas u buurinayaan ka haysan xildhibaanada cusub ee labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya isla markaana rajadoodu ay sii dhumayso halka madaxweyne Farmaajona uu haysto taageero weyn oo xildhibaano badan gacanta ay ugu jiraan. arrintan ayaa mar kale muujinaysa in Rooble uu rabo in sida Fahad Yaasiin uu la dagaalamo oo kale mar kale Farmaajo uu la dagaalamo si xilka madaxweynenimo ee Soomaaliya uu dhaafsiiyo. hase yeeshee waxaa la aaminsan yahay in qorshahan uusan hirgeli doonin sida dad badan ay qabaan oo siyaasadda Soomaaliya falanqeeya. culimada siyaasadda ayaa sidoo kale sheegaya in kulanka Xasan Sheekh Dani iyo Rooble ay ka dhigan tahay dowlado siyaasadeed oo xubnaha damul jadiid ay sameynayaan maadaama la og yahay in Rooble uu ku biiray xisbiga Xasan Sheekh Maxamuud ee UPD horena uga tirsanaa Xasan Sheekh Maxamuudna uu xubin ka ahaaba xisbiga samakaana Saciid Dani uu hore uga tirsanaa xisbiga Xasan Sheekh Maxamuud Xasan Sheekhna uu hogaamiye ka yahay xisbigaasi taasoo mar kale ay rabaan in Villa Soomaaliya ay yimaadaan damul jadiid oo looga wixii dalkani dadka Soomaaliya ay gaarsiiyeen. dhinaca kale cabsi xooggan ayaa soo wajahday mucaaradka Soomaaliya xilli madaxweyne Farmaajo qarka u saaran yahay inuu soo laabto. musharaxiinta mucaaradka ah ee Soomaaliya ayaa hadda wajahaya cabsi xooggan oo la xiriirta in kursiga ay raadinayaan xilka madaxweynenimo ee Soomaaliya aysan hantin doonin kadib markii ay ogaadeen xog sheegaysa in Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu rajadiisa 80% ay marayso isla markaana kursiga mar kale dib ugu soo laaban karo. arrintan ayaa waxay ka dhigan tahay in la qorsheynayo in marka hore la kala dilo damaca Villa Soomaaliya
iyo sidoo kale xildhibaanada cusub si ugu yaraan loo kala dhantaalo xubnaha mucaaradka iyo sidoo kale xubnaha kale ee nabadii nolol ee xilka la raba Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. xubnaha mucaaradka ee Soomaaliya ayaa hadda wajahaya loolankii ugu xooganaa waxaana qaarkood soo saartay cabsi xoogan oo la xiriirta in dib u salaashada Farmaajo oo tin ay ku noqon doonto. qaarkood ayaa laga soo xigtay in hadda isdhiibayaan ayna ka taraasurayaan xilka ay raadinayaan ee Villa Soomaaliya isla markaana ay la midoobayaan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si xilal wasiiro iyo wasiir ku xigeen uu siiyo sida laga soo xigtay xubnaha qaarkood oo ugu horeeyo Cabdikariin Xuseen Guuleed oo durba isdhiibay kadib markii uu arkay loolanka Farmaajo iyo inuu weli awood ku leeyahay soo laabashadiisa. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa hadda rajo weyn ka qaba in mar kale uu qarka u saaran yahay ku guuleysiga xilka madaxweynimo ee Soomaaliya. arrintan ayaa waxay ka dhigan tahay in haddii Farmaajo uu soo laabto mucaarad dambe isjiri doonin isla markaana talada dalkan uu la wareegi doono guud ahaanteed Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. damcuda hadda uu sii dhimanaya cabsidoodu way sii xoogeysanaysaa walaac weyn ay ka qabaan in Farmaajo kursiga Villa Soomaaliya si fudud ku qaadan karo. arrintan ayaa ka dhigan inay tahay qorshe degeen mucaaradka ayna u dhigeen Farmaajo sariiq ah inay dhaafsiyaan kursiga ay ugu sareeya ee Villa Soomaaliya. sidoo kale waxa ay hadda wadaan qorshe weyn oo la xiriirta in mucaaradka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kursiga ay dhaafsiyaan balse qorshahaasi ma ahan mid gabi ahaantiisba hirgeli doono sida dad badan ee siyaasadda falanqeeyahay ay qabaan. dhinaca kale olaha nabadii nolol ayaa hadda bilowday waxaana hadda muuqanaysa in fantasiyaha Farmaajo oo dib loo dhigay balse hadda ay si xoogan baraha bulshada uga socdaan olaha Farmaajo iyo in mar kale kursiga Villa Soomaaliya isaga la doonayo. taageerayaasha nabadii nolol ayaa soo bandhigaya damcooda ugu weyn ee ku aadan in Farmaajo mar kale uu soo laabto. baraha bulshada ee Soomaalida ku wada xiriirto waxaa si weyn looga dareemayaa olahan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee uu ku doonayo xilka madaxweynimo ee Soomaaliya. waxaana guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ee isticmaala baraha bulshada bay uga baryayaan in Farmaajo mar kale uu soo laabto. arrintan ayaa waxay ka dhigan tahay in cabsida ay ku saa'idinayso mucaaradka marka loo eego abaabulka xoogan ee ka socda baraha bulshada iyo sida weyn ee Farmaajo taageero buuxda uu haysto. sidoo kale olaha nabadii nolol ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku soo bandhigaya musharaxnimadiisa xaflad weyn ayaa la filayaa in doodka dambe lagu qabto magaalada caasimadda ah ee Muqdisho sida ila xog ogaal ay una xaqiijiyeen ayna sheegeen in Farmaajo uu ka qayb gali doono olahaasi sida xogta aynu ku helnay. waxaa hadda soo baxaysa walaac weyn oo la xiriirta in haddii Farmaajo uu si cad ugu dhawaaqo inuu yahay musharax madaxweyne oo liisi xafladiisa lagu dhigo magaalada Muqdisho mucaaradka ku noqon doonto dhabarjab weyn oo siyaasadeed. ugu dambeyntiina wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee doorashada Soomaaliya ayaa hadda waxay u muuqataa in meel dhexe ay marayso marka laga reebo muranka iyo khilaafka hareeyay doorashada Gedo oo laba deegaan doorasho ee ka dhacday. sidoo kale doorashada xilka madaxweynimo ee Soomaaliya ayaa hadda ay soo dhamaanaysaa loolanka iyo awood qaybsiga mucaaradka ay ugu jiraan iyo in mar kale uu soo laaban karo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. sidoo kale doorashada Soomaaliya si weyn ayaa isha loogu hayaa waxaana sanadkan aad u hooseeya damci waalida ahaa ee ku jiray dowladaha Carabeed oo siyaasiyiinta qaarkood taageerayay marka laga reebo Qatar oo si cad u muujisay in Farmaajo mar kale ay taageerayso balse Imaaraadka iyo Sacuudiga ayaan weli gacanta lagu haynin. guud ahaan saaxiibayaal wanaageentaa wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee Soomaaliya tan iyo kulan dambe nabadgelyo.